gudoomiyaal badan oo degmooyinkana way joogaan. halkan waxaa iiga muuqda gabdhihii sucaadi xag u xigtay ifritskii sportskii haweenkii arrimihii bulshada intan caawa waxaan diraynaa baaqaas oo ah waxaan maqlaynaa maalmahan madaxtooyadan ku daadanaynaa waa daadanaynaa yaa oo xalgee loo daadanaya waa u gelaynaa farmaajo aan u soconaa farmaajo wax badanaa ka horreeya derbiye adag ayaa ka horreeya waxaan rabaa gabdhihii fanaaniinta iyo shamse cali macalin agaasimihii dhamaayaa maqan fanka agaasimo bal soo istaag waxaan ku noolaan karnaa nabad waxaan rabnaa wada shaqayn agaasimaha fanka gobolka banaadir shamse ha timaado kameramaanka ilaalinaya brotokoolka duqa maryana waa gabar bal wax yar noo sii adkeeyo marinaha kusoo biirto marinay baladnaymo bal maxaa inaga maqan maxaa inoo dhiman agaasimihii ma timid abwaanadna way tahay ishaa macallin horta bal shaydaankaa laga naaro aan dhahno maasha allah maasha allah maasha allah gudoomiyaha gobolka banaadir intaan iyo in ka badan oo waxaan isleeyahay fardafuulka yaqaana oo fanaaniina oo fariimaha diri kara ayuu gobolku leeyahay dowladnimadana waxay ka bilaabataa degmo gudoomiye cali waxaa rabaa inaan gudoomiye bayaxaawayaa tahay horta aadaad u mahadsan tahay annagoo degmadan intaan waxaan u soo istaagna horta inaan hortiina aan uga mahad celiyo ballanqaadkii gudoomiyaha uu ballanqaaday haweenka gobolka banaadir inuu ka soo baxay dhammaystiray natiijadiina aan helnay kadibna aan shaqar ka maqalna taleefanada waa la yaab dhalalow gudoomiye waa mahadsanta farxaddu iyo dhiirigelinta waa qayb ka mida degmadaana naloogu ballanqaaday ballanqaad uuna ka baxay gudoomiyaha gobolka banaadir horta ballanta aad ugu wanaagsan yahay gabdhahana aad ayuu u dhiirigeliyaa waxaan rabnaa yeeshayaasha magaaladan ee qadka weerarka ka ciyaara carabi waa qadka dhexe waxaan u malaynaa diyeeshaha qarankana waxaa inoo fadhiya maxamed amiin jeeso daahir amiin mudana gudoomiye nabada macaan badan meelaan nabadi jirina nolol ma jirto waxaan rabnaa annagu haweenka gobolkaa nahay halkanaan caawa taaganahay waxaan soo marnay ayadoo dadka lagu qalo ayadoo ay cadowga degan yihiin ayadoo bohola ay tahay caawa intaan waxaan ku joogi karnaa waa nabad abwaanka heesay nabad fariimo heesaa la diray nabad qof walbaba baaq nabadeed ayuu diray waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed inaan ugu baaqno annagu inaan nahay haweenkii gobolka banaadir markaan nahay magaca haweenka soomaaliyeed ayaan matelnaa ilaahay alla subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh wax inoo dhimana ma jiraan waxaa nasiib daraa marka haweenka soomaaliyeed waxaa ka xaaraantimaysan hurinta colaadaha waxaa ka mamnuuca inay kala geeyaan isku diraan guri nabadeedna ay dumiyaan waxaan maqlaynaa maalmahan haween leh madaxweyne farmaajo waxaan kuugu soo gelaynaa gurigaaga waa kuugu daadaynaa ama 3 madaxweynaan magaalada ku dhaysanaa horta magaaladan madaxweynaha waxaa wakiiloga cumar maxamuud maxamed cumar finish asagaana madaxweyne ka ah nin soo jeeda lama gaadeen nin jiifa horta la gaadaa wuu diyaarsan yahay dhan walbuu ka diyaarsan yahay gobolkan annaguna waxaan rabnaa mudana madaxweyne annagoo ilaalinayna magaca haweenka soomaaliyeed marka hore inaan dhahno mudana madaxweyne raalli ka noqo hadallada qallafan ee aan isleeyahay ama waasirqa ama waxbay si ka noqdeen ee haweenka maalmahan ka imaanayay waan ka jawaabi doonaa laakiin caawa maaha laakiin waxaan rabnaa bal inaan tusno haykalka dowladnimada iyo wada noolaashada nimcada iyo qudaarta iyo gabdhaha inteenaan ayaa ugu horeeya inta difaacaysa dowladnimada soo saas maaha annagaa difaacanayna annagaa ilaashanayna shalayna annagaa cadowga ka bixinay bilicdan iyo quruxdan iyo khayraadkaana intaan isku dilnay ayaan ku kala tagno ku hayaano soomaaliya uma baahna colaad iyo hurin cid walba oo wax rabta waa inay miiska talada timaado madaxweyne maandhayle baarlamaan idman oo codkooda lagu doortaa jooga isdhexgalka bulshada iyo nashaadka degmada iyo horumarka dowladnimada iyo gabdhahan colaada ku dhashay ee ku barbaaray
waxa deeqi kara waa dowladnimo annaguna malaygu biyo la'aan ma noolaan karo haweenkuna dowlad la'aan ma noolaan karaan nabadaan rabnaa dowladaan rabnaa waxaan rabnaa baaqa ugu dambeeya inaan dhahno qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed caasimadda jawi degan ayuu ku joogi karaa ilaalinteeda xakamaynteeda ka warqabkooda habeen iyo maalin ciidamada u maartay guuraha ugu jira laakiin ayagu waxba kama oga dad ayaa lagu xisaabtamaa dad ayaa xilka looga qaadaa insha Allah mudane gudoomiye hortaada ka qiraynaa wixii dhacayo telefoonada iyo facebookyada laga arkayay intaana ilaashanaysa annaga nabad rabno mucaarad iyo muxaafad ninkii wax isku hayo doorasha la aaday shir doorashada ha ogolaadaan leenahay nin jeclaysi wuu dhamaaday gurbaanatuna wuu dhamaaday ana reer hebelana way dhamaatay waxay la tahay Soomaalinimadu ha sarreysaan leenahay Soomaalinimadu ha sarreysaan leenahay ninkii wax tabanay miiska talada ha yimaadaan leenahay qofkay wax ka maqan yihiin waa loo dhimrinayaa walaalkaaga qaldan midka aqliga la celinayo ciidamada wiilasha dhimanayana hooyo Soomaaliyeed ah dhashay laakiin nin ilmihiisii geystay qurbo ee dalkaan waxba ka joogin daaraha quruxda badan leh dadkuna ay dadkiisa yihiin hadduu yiraahdo waxaan duminayaa taas waa doqonnimo waa nasiib darro waxaan rabnaa marka annagu intaan aad aragteen haweena oo waxba qaadanayn ayaaba dowladnimada rabo difaacanaye waradoo soo degay oo qaato soo arko soo dhadhamiyay yaad hurinee oo hadda ka yeelay war ma yeelayna dagaal ma dagaalaan rabnaa 8 February markii la gaaro ka hor doorasho dhacaysa qofku wax isku hayo xildhibaan la imo xiskaago miir qabana xafiirtan xisaabtan xamar xakamayn dambe iyo qax dambe nooma noqdo waayeen iyo walaal iyo ehel dadka jooga dhalinyarada quruxda badan dhagihiina fura aan ilaashano waxa soo haray haweenka Soomaaliyeed marnaba waxa mamnuuc ka ah inaan urno colaad annaga dhalnay annaga u dhaxnay annaga ah kuwa nabad darrada waxaan rabaa kuwa dabka damiir lahaa ee kala qaadi lahaa oo kala gal qaadi lahaa madaxweynaha u tagi lahaa ee kuwa maarta mucaaradka afariisa lahaa hadday dhahan waa 8 February hadda waa soo daadanaysiine yaan darbada kugu dhicina leena marka islaamaana xarun lagu xanaaneeyaan geynayna qofta qaldan sharciga kugu qaban doonaa inta mihirka qabtan waxay leenahay aqligu ha shaqeeyo xisbiga tamaam noqdo gudoomiye Umar Maxamed Umar Finish intaan iyo in ka badan iyo dabaabaadu wataa waxaan u rajaynayaa wixii loo soo diruna qabanaya annagu waxaan nahay u adeegayaal u qidmeeyaal dowladnimada calanka buluugaan ilaashanaynaa nabadaasaan ilaashanaynaa xamar codka haweenka gobolka Banaadir markaan ku hadlaayana waxaan fariin u dirayaa hooyo walba oo si qaldan hadlayso meeshan kubad lagu wada ciyaari kare hooyan wadada marka al-mukarrama dhaafin ee biyaha markaan ciidamada u geynaynay oo jiida aan joognay aan waligeed bajidkan dhaafin ee lugaheedu u laaban yihiin ee gaarigeeda iyo gurigeeda isdhexbarkan kama yeelayno afkeena shabaab ku bixinay wixii wax dulminayeen afkeena isaga celinayna waa nabadsantiin